Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waa qaybtii 6aad ee buugga qisooyinka nebiyada. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ah ee nooc walba leh. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buugga aad halkan ka dhageysatid waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee ogaal sida miidiya. Maantana waxaa akhrin doona 3 qiso oo kala ah qisadii Nebi Luud, Nebi Isxaaq iyo Nebi Yacquub. Marka fadlan la soco buugaagta aan halkan ku soo gudbino, waxayna ku bilaabaynaysaa sidan qisadu. Ogeysiis horta ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhagaysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sarreeya dadka uu la nool yahay. Marka daawadeed waxaa kuu rajaynayaa in aad noqoto dhagayste wanaagsan iyo qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Ogowna haddii aad isku qancinaysi waxaan waa application, codkiisa lama dhagaysan karo, waa mid adi ku taal. Anigu waxaa u dhididayaa dadka faa'iidada raba in ay wacyigood dhisaan 40 daqiiqo oo ay ku akhrin lahaayeen 10 bog ugu bedelo 10 daqiiqo oo dhageystaan 15 bog oo hal mar ah. Qisaduna waxay ku bilaabanaysaa sidan. Nebi Luud. Markii ay mushrikiintii dabka ku tuureen Nebi Ibraahim, Ilaahayna dabkii ka dhigay qabow iyo ammaan. Waxaa Nebi Ibraahim rumeeyey Luud calayhi salaam oo ahaa wiil uu dhalay Nebi Ibraahim walaalkiisa, wuxuuna ugu beegnaa wiilkiisa oo kale. Nebi Ibraahim wuxuu la hijrooday Luud, waxayna qabteen dhulka Shaam. Kadib Alle ayaa u waxyooday in uu tago tuulo u Falastiin ka tirsan. Waxaa ku noolaa dad la sheego inay ahaayeen kuwii ugu faajirsanaa bulshada. Waxay ahaayeen gaalo, isbaaradana way dhigan jireen. Waxay samayn jireen faaxisho tii ugu xumayd ee insaan sameeyo. Waxay u tegi jireen ragga oo ay hunguri ka raadin jiray. Falalkaas xun oo aan hortood ka dhicin dunida waxaa u dheeraa howlo fool xun, munkar iyo dhaqan liita oo ay shaqo ka dhigteen. Nebi Luud calayhi salaam ayaa wacdiyey oo ku yidhi, ma faaxisho aan hortiin la samayn baad falaysaan? Ma waxaad hunguri ka raadinaysaan ragga iyadoo Ilaahay idinku talogalay dumar? Waxaad yihiin dad xadgudbay oo caqliga saliimka ah ee basharka ka baxay. Waxay yidhaahdeen, Luud iyo ehelkiisa tuulada ha laga saaro, waa dad daahir ahe, kuma noolaan karaan meeshan. Nebi Luud calayhi salaam kama quusan in uu xagga Alle ugu yeero iyo in markasta towbadu ay furan tahay. Wuxuu ku waanin jiray inay macsida ka tagaan, balse waxaan jees iyo qosol ahayn kalama kulmin. Wayna ka jeesteen in ay Allah u soo laabtaan cadaabka iyo halaaga. Alle ayaa u yimid malaa'igtii samada ka soo degatay. Malaa'igtu intii aysan Nebi Luud u tegin waxay sii mareen Nebi Ibraahim, wuxuuna u qalay dibi aad u weyn, balse malaa'igtii baa u sheegtay in loo diray xagga iyo Luud. Waxay u yimaadeen Nebi Luud iyaga oo quruxdooda bannaanka taalo. Markii uu arkay Nebi Luud wuxuu dareemay murugo, sababtoo ah dadkan sidan u qurxoon ee u soo martiyey waxaa soo damci kara dadkii falalka xun wadwaday. Sidii ayaana dhacday. Dadkii oo farxadii ka muuqato waxay soo buuxdhaafiyeen gurigii nebiga dhinaciisa. Waxay bilaabeen inay iridda soo riixaan. Nebi Luudna dhinaca ka sii riixo si aysan u soo gelin, balse waxay soo jebiyeen albaabka. Nebi Luud baa ku yidhi, dadkani waa martiday, ha igu fadeexaynina. Mid maan leh miyuusan idinku jirin? Malaa'igta waxay u sheegeen Nebi Luud in Allah uu soo diray dadkaana dhowaan la halaagi doono oo aysan waxba u geysan karin iyaga. Dadkii sidii iridda u buuxay, halmar baa malakul Jibriil garabkiisa ku dhuftay. Indhaha ayay wada beeleen gebigood. Kadib Allah ayaa faray Nebi Luud in isaga iyo ehelkiisa ay isaga rawaxaan tuulada inta aanu waagu baryin, marka laga reebo xaaskiisa oo ahayd kaafirad la dhacsanayd dhaqankii magaalada. Waxaana loo sheegay in islaantaasina cadaabka uu haleeli doono. Nebi Luud ayaa soo guureeyey inta aan la gaarin fajarka, tuuladiina wuu ka fogaaday halaagii oo soo degay.
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u diray tuuladaasi malakul jibriil wuxuuna sare u qaaday tuulada oo idil kadib kor ayuu la tegey wuxuu la gediyey dadkii ku noolaa meeshii koraysay waxay martay hoos meeshii hoosena sare ayay martay kadib waxaa lagu soo daadiyey dhagaxaan ka samaysan dhoobo adag taasina waxay abaalgud u ahayd gaalnimadooda iyo macaasidii ay fali jireen qisada nebi luud meelo badan ayaa lagaga hadlay qur-aanka waxaana ka mid ah suuradda shucaraa oo alle weyne sud ku yidhi reer luud waxay beeniyeen rusushii loo diray markii uu yidhi walaalkood luud miyaydan alle ka baqayn waxaan idin ahay rasuul aamin ah ka dhowrsada eebbe ina adeeca idinkama warsanayo xaqa ujuuro ajirkayga eebbaha caalamka ayaan ka sugi miyaad u tegaysaan kuwa labka ah ee dadka amid ah oo miyaad ka tegaysaan wixii eebbe idin abuuray oo haweenkiina ah waxaad tihiin qolyo tallaabay oo xadgudbay waxay dhaheen haddaanad joogin luudow waxaad noqon doontaa kuwa la saaro masaafuriyo wuxuu yidhi anigu camalkiina ayaan ka xumahay oo aan ka caraysan nahay rabbiyow iga kori aniga iyo ehelkayga waxay falayaan cuqubada imaan doonta waana ka korinay isaga iyo ehelkiisa dhammaantood habar kuwa cadaabka ku hadhay mooyee kuwii soo haraynay waan halaagnay waxaan ku soo daynay roob dhagax naar ah waxaana u liitay kuwii loo digay taasina waxaa ku sugan calaamad lagu cibro qaato badankooduna ma aha kuwo rumeeya maxaynu ka baran karnaa qisadani macsida iyo dunuubtu waxay sabab u yihiin cadaabka alle iyo ciqaabtiisa alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ilaaliyaa addoommadiisa wanaagsan insaanka marka uu ka tago xishoodka waxa uu ka hoos maraa darajada xayawaannimo nebi isxaaq iyo nebi yacquub nebi ibraahim calayhi salaam markii uu da'a gaaray xaaskiisa saarana ay dada ka daba timid welina aanay carruur u dhalin nebi ibraahim ayaa allaah ugu bishaareeyey in saara ay dhali doonto wiil la yidhaahdo isxaaq nebi isxaaq carruurtii uu dhalay waxaa ka mid ahaa yacquub nebi yacquub waxa uu aabbe u ahaa hal 2 carruur ah waxaa loo yaqaanaa magaca israa'iil iyo in uu yahay aabbaha reer bani israa'iil yuusuf iyo binyaamiin ayaa isku hooyo ahaa aabbahooda aad ayuu u jeclaa labadooda gaar ahaan yuusuf oo la sheego inuu wiilasha kale ka jeclaa maalin baa waxaa dhacday in shaydaan uu xasad ku rido qalbiyada wiilashii la dhashay yuusuf waxayna go'aansadeen in ay ku ridaan ceel nebi yacquub aad ayuu uga murgooday inuu waayo wiilkiisa muddo kadib waxaa dib u midoobay yacquub iyo yuusuf oo boqor noqday wakhtigaasi waxayna ku noolaayeen nolol iska wanaagsan geeridii nebi yacquub kolkii uu dareemay inuu macsalaamaynayo dunida ayuu isugu yeeray wiilashiisa oo uu ku yidhi markaan geeriyoodo maxaad caabudi doontaan waxay ku jawaabeen allahaaga iyo allihii ay caabudi jiraan aabbayaashada oo ah alle weyne subxaanahu wa tacaalaa ayaan caabudaynaa isaga ayaana u hoggaansamaynaa allaah sud waxa uu yidhi waxay u la yimaadeen malaa'igta nebi ibraahim bishaaro waxayna dhaheen nabadgelyo isagiina nabadgelyo dushiinna ha ahaato ayuu yidhi ma sii jooginba in uu u keenay dibi shilis oo la soo shiilay markuu arkay in ayna gacmahoodu gaarayn hilibka wuu diday cabsina laabta ku qabsaday waxay yidhaahdeen cabsan waxaana loo soo diray qoomka luud haweenaydiisiina wayba taagan tahay waabay qososhay waxaannu ugu bishaaraynay nebi isxaaq oo ka sii farcami doona yacquub islaantii waxay tidhi hoogaygii ma waxaan dhali doonaa anooda ah odaygaygan dada ah waa arrin la yaab leh malaa'igtii waxay dhaheen ma waxaad la yaabaysaa arrinka ilaahay eebbe naxariistiisa iyo barakadiisa dushiina ha ahaato reerka guriganow eebbena waa la mahdiye sharfan maxaynu ka baran karnaa qisadani hal waalidka in la adeeco amarkoodana la fuliyo waa waajib 2 in alle la talo saarto oo aan la quusan ayaan ka baran karnaa qisadani 3 in loo sabro imtixaanka adduun waxaa lagu helayaa darajo aakhiro
4 dardaaran habboon waa in la siiyaa ubadka mar kasta.